الحمد لله والصلاة والسلام لله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق القرآن الكريم. أما بعد هدي أنا soo noqdo anigoo maanta oo taariikhdu tahay shantii bishii November ama bishii 11aad taariikhda milaadiga taariikhda maaragtay isoo sheega milaadiga ta hijrada maaha ta milaadiga ay tahay 2019 November 5 waxaan halkan ku qabanayaa anigoo ka jawaabaya barnaamij shalay toole ay dhaafay oo ka socday Aero TV Channel TV gaasoo TV aad u wanaagsan warbaahinta maaragtay caalamiga aad loo yaqaanay Soomaalidana ka mid ah iyadoo uu daadihaynayo waryaha weyn ee caanka ka gayiga Soomaalida oo dhan la yaqaano iyo cariga Ingiriiskaba waryahaasoo magaciisu yahay Faysal Cabdullaahi Abaroone. waxaan cudurdaar markaa ka yar dhiganayaa oon leeyahay shalay toole way ahayd inaan kasoo qayb galo barnaamijkaasi laygu casuumay oo inaan ka hadla ay ahayd laakiinse ilaahay subxaanahu wa tacaala muu qadarin inaan ka hadlo barnaamijkaas oon kasoo qayb galo aniguna waxa weeyaan howlo shaqo ayaan ku maqnaa sidaa darteed baan maaragtay uga soo qayb geli waayo waa sidii uu maaragtay isaga naftarkiisu u sheegay ay ahayd mar dambe laakiin aan qaybta social mediaha aan uga soo qayb galay oo aan markaa damcay haddana ay suurto geliba weydo ilaahay qadarin marka waxaan kasii soconayaa waxaan rabaa markaa oo saldhig u ah maadaama shalay toole sheegay inaan halkan kaga jawaabo barnaamijka ugu magac daray dhibanaha boqoran ugu magac daray ama xubintiisu ay ahayd xubintiisuba ay daarnayd shirqoolada shinkoogu buuxsamay. haddaba markaa anigoo qodob u dul istaagaya 4 qodob buu ahaa. qodobkiisa koowaad falanqaynta bilowgii iyo ilduufkii 1990kii sagaashimaadkii ayuu maaragtay qodobka koowaad yahay. qodobka labaadna waxa weeyaan kaadiriinta keeno maal howlahay qabtaan kaadiriinta keeno maal iyo howlahay qabtaan. qodobka saddexaad gobolka awdal yaa maamula yaase ku lamaan. qodobka afaraad kacdoonka taagan ma noqon doonaa mid kurbada fayda. kacdoonka taagan ma noqon doonaa mid kurbada fayda weeyaan qodobka afaraadna. afartaa qodob baan markaa midaan u dul istaagi doonaa. alxamdulilah ilaahay baa mahadlay horta oo isku kaya keena waxaan halkan ka salaamaya dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intii maqlaysa ee maqashay ama dheehatadii maaragtay ii soo sheegeen maqaalkayga iyo maqaaladan soo duubaba iyo intaan i taageersanayn meel kastoo ay ka joogaan dibad iyo gudaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan maaragtay aan bogaadinayaa walaalkeen had iyo jeer xilqaamay ee maaragtay barnaamijkan soo diyaariya anaguna aan kasoo qayb galno intiisa badan oo annagana nagu casuumay laakiin ay suurtageli weyday iyo Aero TV
channel aad baan maaragtay soo sheeg u bogaadinayaa oo hormood u yahay wariyaha weyne Faysal Abrone. inta ka bacdi waxaan rabaa inaan qodobka dul istaago falaqaynta bilowgii ilduufkii 1990kii. anigu run ahaantii markaan qodobka dul istaago falaqaynta bilowgii ilduufku wuxuu ahaa 1900 waxa weeyaan sidaynu wada ogsoonahay dowladdii Soomaaliyeed ee ka jirtay Soomaaliba wada lahayd wuxuu ahaa 1900 iyo maartay 1960kii la aasaasay Cabdirashiid markii ay dhacday waxaa xilka qabsaday Maxamed Siyaad Barre oo markaas si kastaba ha ku imaadee ahna ahaa kacaanka xilligii maartuu kacaanku jiray waqtigaasoo markaa dowladnimada Soomaaliyeed ay buuxday dowladaha ugu awoodda badan ay ahayd geyga maartay Afrika. run ahaantii waxa markaasi ku yimid waxa la yiraahdo oo aad looga xumaado iyadoo markaasi ay jireenba oo ahayd siyaasadda adduunka oo wada ogsoonahay isbedbedel fara badan baa ku yimaada waxa weeyaan wax meel taagan ma aha revolution fara badan baa ku yimaada siyaasadda sideedaba wuxuu markaa geygaasi waqtigaas ahaa oo Afrika wadanada ugu awoodda badan uu ka mid ahaa Afrika waxa markaa xilliga madaxweynayaashii aan soo haysan jiray ka mid ah oo ay arrimahaasi saameysay wadankii Zaire loo oran jiray oo Mobutu Sese Seko uu xilliga haystay waxa uu ka mid ahaa oo Maxamed Siyaad Barre ka dhex muuqday uu ahaa xilligii ANU-da ninkii ugu horreeyay ee looga dhigay madaxweyne ama se xilliga 70-yadii uu markaasi noqday ninka markaasi isku keenay maartay African ay u arkeen iyadoo wadanada qaarkood Afrikaanka sida wadanka Southern Africa wadanada la yiraahdo ay gumeys ku jireen wuxuuna ka mid ahaa markaas wadanadii maartay soo sheegay isagoo aanan awood saas waqti dheer dowladdiisa iyo xukuumaddiisu ayna jirin Chinaha isagoo u ololeynaya inuu ka mid noqdo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa awoodaha shanta awoodaha maartay soo sheeg veto power-ka in lagu soo daro ayuu ka mid ahaa dowladdaas iyo systemkaasi wuxuu markaa ka hor yimid sideedaba Afrika waxa jiray waxa la yiraahdo jabhada la isku sameyn jiray iyadoo Congo loo sameeyay wad ogtiin Congo maanta inay tahay Congo ka shaashay Congo Brazzaville inay laba u qaybsan tahay iyadoo markaasi jabhada far badan la isku hubeeyay dalalka markaa u dhow ay isku hubeeyeen ama Rwanda xageega ka yimaada ama dhinaca kale ay jaarka leeyihiin Cameroon ka timaado markaasi waxay ahayd mid aad u ballaaran iyo revolutionkii ku dhacay Afrika ayaan oran karaa inay dowladdii Soomaaliyana ay maartay dhex gashay oo saameyn ku iyadoo saameynta koobaad la yiraahdo 1977 dagaal wuxuu la galay Maxamed Siyaad Barre isagoo doonaya dhulkii maartay Soomaaliyeed Soomaali galbeed isagoo dagaalkaasi 77kii la galay kadib markaasi waxay arrimahaasi keentay isagoo markaasi migista Hayle Mariam oo haystay dhinaca Ethiopia oo madaxweyne ka ahaa arrintaasi waxay sababtay markaas in jabhada la isku abaabulo waxa ku horeeyay migista Hayle Mariam oo markaasi SNM oo markaasi Somali National Movement ah maartay gacan siiyay iyadoo ay ugu horeeyeen jabhadii ugu horeysay SDF ta ahayd SDF oo markaasi ahayd jabhada maartay ugu horeysay gashay ee deegaankaasi jabhadaasi waliba ay ka soo jeedaan dhinaca Puntland waxa markaa ku xigay SNM baa ku xigtay waxa ku sii xigay markaas UNC jabhadihii markaa gobolka Soomaaliya ama wadanka Soomaaliya ama degalkii Soomaali degnayd la yaqaanay Soomaaliya waxa soo galay markaa jabhadahaasi markay jabhadahaasi soo galeen ayaa waxa la yiraahdaa falaqaynta bilowgii ilduufka 90-maadkii ilduufkaasi wuxuu keenay dadka qaarkood waxay aaminsanaayeen in ay sax yihiin bay aaminsan yihiin bulshada Soomaaliyeed qaarna waxay aaminsanayaan inay maanta wixii haday qabsadeen bedelay ayna iiman Soomaalina ay ku daba dheeraatay dowladda Soomaaliyeed oo ka jiraan muddo 30 sano tusbax furatay ay noqotay adduunkana meel kasta ay dhibaatooyin fara badan ay kala kulmeen kaas waxaan markaa ku tilmaami karaa inay tahay falanqaynta bilowgii ilduufkii 1900 ee ku aadanayd baan u arkaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan jabhadahaasi ku yimid inay dhibaatooyin ku keeneen jabhada SNM-na ay ka mid ahayd jabhadahaasi haddaba markaan gunta u dhaadhaco ama se maartay araarteeda aan uga soo hoos dhaco aan idhaahdo gunta aan taabto waxa weeyaan runtii 1991kii waxay markaa
SNM ay dhulka qabsadeen waxay markaa heshiis la galeen oo ay rabeen iyadoo markaasi ay gadaafooyin fara badan ka geysteen gobolada Awdal, Dila, Boorama iyo maaragtay Lughaya iyo Saylac intaba dhibaatooyin fara badan ay ka geysteen. iyadoo halkaa uu markaasi ay ku dileen 750 qof. Hogaamiye markaasi la oran jiray maaragtay waxa hogaaminaya SNM oo ahaa gudoomiyaha SNM ah ee garabka siyaasadda iyo abaanduliyaashiisa oo garab socda oo abaandulaha guud ee ciidanka wateena Muuse Bixi uu ahaa. Ku-xigeenkiisana looga dhigay nin geyga dhinaca gobolada Awdal ka soo jeeda oo isaguna Cabdiraxmaan oo Cali Faarax la oranayay. runtii markii gobolada ay deegaanka soo galeen waxay la dagaalamayeen dowladdii markaasi Maxamed Siyaad Barre oo ahayd markaasi iyagu ay u arkayeen inuu ahaa keligii talis ay u arkayeen markaasi dhulkaas dabadeedna ay ka qabsadeen. runtii markaa waxa weeyaan deegaankaasi waxay markaasi soo galeen gobolada Awdal iyadoo markaasi ay gadaafooyin fara badan ay u geysteen dagaalo badan ay la galeen runtii dadkii Safiliyaankiina lagu laayay. haddaba waxa weeyaan 1991kii ayay markaa haddana markii dambe waxay abaabuleen iyaga oo markaasi dagaalo sokeeye ka dhacay dhinaca maartay Hargeysa iyo Bulco iyadoo naftarkaygu ay jiraan ay ku kala duwanaayeen waxa la yiraahdo Cabdiraxmaan iyadoo markaasi SNM waxay u qaybsameed laba u qaybsameed waxayna ogeyn SNM waxa la oranayay ururka marka dhaqdhaqaaqa ee dagaalamayay oo Somali National Movement la oranayay laakiin cidda arintaasi keentay oo ka dambeysay laba u qaybsanaayeen calan cad iyo calan casba loo yaqaanay. calan castu markaa waxay ahaayeen kuwa qoyar socda oo siyaasadoodu degantay qolana oo markaasi ah niman siyaasiyiin aqoon-yahaniina ah oo arintaasi curiyay loogana cabsi karay jeelkana ku jiray. marka waxaa kamid ahaa Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo jeelka ku jiray, waxaa kamid ahaa Quraab oo isaguna markaasi jeelka muddo ku jiray kadibna laga sii daayay Itoobiya galay. labada nin iyagu waxay haayeen calan cas iyo qaar badan oo fara badan oo iyaguna la mid ahaa oo ku jiray oo magacdoodan imika halkan aan ka sheegaynin si fiican aan maartay marka ma garanaysa ay jiraan oo arintaasi kula socday. haddaba labada dhinac markaasi iyagoo ah waxa kaloo dhinacan kale marka calan castu iyagu ay ahaayeen kuwa ku jabhadana maamulayay kuna adag dhulka markii la yimidna kala duwanaansho noqotay. Cabdiraxmaan Tuur oo markaasi isaguna noqday gudoomiye ku-xigeenka xitaa soo noqday gudoomiye ku-xigeenka markaas wuxuu ahaa SNM ayuu ahaa. runta markaanu ka hadalno waxa madaxweyne ka ahaa gudoomiyaha Maxamed Axmed Siiraanyo ku-xigeenkiisuna wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Tuur Allah u naxariistee. marka waxa jira arrimo markaasi waxa jiray ii soo sheeg kadib iyadoo markay dhulkii la yimid ee la qabsaday dhulka oo dib loogu soo noqday 1991kii waxa la iskugu yimid magaalada Burco iyadoo laga wada hadlayo wadankana dagaalo sokeeye oo markaa ka dhacay dhinac walba oo dagaalo sokeeye oo guud ahaanba Soomaaliya maartay uu saameeyay dagaalkaasi oo dhinaca koonfurta iyo dhinaca waqooyiga labaduba ay dagaalo badan ay saameeyeen. wixii ka dambeeyay markaa dhinaca waqooyigu wuxuu noqday mid markaa Gaddaafin lagu sameeyay 90kii oo ah SNM markay deegaanka soo galaysay waxa aad ugu nugleeyay laba siyaasadood oo lagu kala duwanaado calan caski iyo calan cad oo ay ku kala duwaneed ahayd. siyaasiyiinta calan castu waxay aaminsanayeen inaan la gelin deegaankaasi waxa kamid ahaa oo xagga dambe kaga biiray Cumar Carte Qaalib oo isaguna ninka nugleeyay ahaa ee markaasi raacay waxa kamid ahaa markaasi Quraab iyo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaalna waxay aaminsanaayeen maadaama deegaanka ee la qabtay oo maartay in wax maartay soo kala fogaansho ah oo dadka ku keenaya in dadka qabaa'ilka ee deegaankaasi degan in arintan laga dhigin wax la yiraahdo maartay convalix ku keenayo qabyaalada dadka lagu dhex abuuro aan la sameyn oo dagaalo lagu qaadin. kadib marka maadaama iyaga awoodda inay gacanta ugu jirin oo markaasi nimankan day ahaayeen maartay aynan ku lahayn saameyn weyn ay ku lahayn oo nimankan jabhadda ee deegaanka soo galay ay markaasi saameyn weyn ku lahaayeen. waxa marka arinkaasi la isku gadaafeeyay oo dagaalka sii waday oo deegaanka dhinaca galbeedka galay oo markaasi Cabdiraxmaan Cali oo markaasi ahaa abaanduulaha ku-xigeenka oo qaybtaasi jananka ciidanka sida loo yaqaan ama abaanduulaha waxa ahaa Muuse Bixi oo isagu sida guudba abaanduulaha magacaan bisnaa.
marka ninkaasoo markaasi ku dhawaaqay iyadoo doonaya si fududayna loo galo laakiin aanan snm naftarkeyga isku raaxsanayn oo calaan casta qoladii la oran jiray waxaa ka mid ahaa ina gahayr oo muuse gacantiisa ku dilay ina gahayr oo gacantiisa uu ku dilay baa ka mid ahaa oo diidanaa arrimahaasi oo dadku gacantiisa ku dilay bay ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa nin kaleo isaguna uu dilay oo marka in dadka rayga ay arrinta ahaan kaga soo horjeeda odaynimo ahaan arrinka ogolo oo lahaa dagaalada maaragtay ka dhigana maadaama deegaankaan deganay dhinaca maaragtay isoo sheeg laas caanoodna yaana dagaalada lagu qaadin yaan lagu qaadin dhinaca dagaalka maaragtay isoo sheeg gobolo awdalna yaanan dagaal lagu gelin laakiinse arrinkaasi sidaa lagu joogsado isagoo markaasi ku dhabar adeygay in dagaalka la galo labada dhinacba markaasi gaf weyn buu ku geystay dad buu ku dilay markaasi taasoo keentay ilaa imika keenaysa in cuftig ay keentay fara badan oo deegaamadaasi ninka uu dhinaca ku dilay uu yahay dhinac kasoo jeeda gobolada bariga dhinaca burco kasoo jeeda iyo sanaag okay waxaan usoo noqonayaa marka deegaanka socdaalkaasi markii ay socdeen ee meesha la ogaaday markaa galbeedka waxaa jiray jabhad la oran jiray horyeel oo ka dagaalami jirtay dhinaca Ethiopia oo hubaysnaa oo hubkoogii haystay marka waxay markaa sameeyeen in iska caabin la sameeyo oo dhinacan la yimaado markaasi kadibna jabhadihii ay noqdaan in jabhadahaasi hubka kala wareegaan iyaguna dhinacii dowladii oo ay noqdaan marka ay la xuuraamay in dagaalo lagu soo qaaday dagaalkaasoo ku dhexmaray deegaanada u dhaxeeya ilaa iyo caabudla ilaa iyo hargeys gabiile ilaa iyo dila ilaa iyo maaragtay soo sheegeen wajaale run ahaanteeda iyadoo la sheego wajaale markaasi waxaa hadallada marka arrinta markii la ogaaday inay jabhadu ay soo ruqaansanayaan oo ay rabaan inay qabsadaan deegaankaas iyagoo markaasi leh deegaanka waxa weeyaan waa inaanu qabanaa waxa weeyaan waxana jooga maaragtay soo sheeg iyaguna waxay ahaayeen dad la shaqeeya oo maaragtay aaminsan maadaama fikirka anaga la qaadan waayeen oo na soo raaci waayaan arrimahaas oo dhan waxay keentay markaasi iska horimaad aad u weyn bay keentay waxaana cabdiraxmaan wuxuu ahaa ninka nugleeyey arrinkaasi nugleeyey oo u fududeeyey in deegaanka la soo galo maadaama abaandulihii maaragtay ii soo sheegay isagoo socda oo haysta dagaalgeliyaha laga dhigay markaasi oo marka abaanduluhu uu yahay maaragtay ii soo sheeg muuse sida guud marka waxaa loogu magacaabay abaandulaha galbeedka ciidamada jabhadda ayaa loo magacaabay si dagaalka uu dhex galo marka hadal buu ku dhawaaqay markaas isagoo doonaya in uu marka u hoosaasiyo jabhada maadaama ogaadeen inay iyaguna jabhadii horyaal dhinacan ay yimaadeen oo dagaalo in la gelaya la ogaaday iyadoo marka hadalkii halku dhig lagu soo galay waxaa ku dhawaaqay markaasi sagaashamaadkii 1991kii meelaha waxaa ku dhawaaqay cumar carte qaalib oo ku dhawaaqay jabhadaha gobolada waqooyi ha isku dhiibaan jabhadda SNM iyadoo taasi markaa noqotay mid aad u adag run ahaantii waxaan ahaa dadkii markaa waqtigaasi xilligii dowladii maxamed saad bare ay burburtay ahana qaadka ahaa ee qaangaadhka ahaa ilaa 16 jir baan ahaa waxaan xasuustaa markaa BBC-dana aan ka dhagaysanayay in hadalkaasi isagoo ku hadlaya markaa aan dhagaystay aniga naftarkaygu marka waxaa jiray markii deegaankii la soo galay wuxuu markaasi ku isaguna uu u hoosaasiyo oo yidhi waxaan nahay anagu SDA xisbiga SDA oo markaa laga aasaasay dhinaca Djibouti iyadoo markaa la doonayay in ay ka qayb galaan maadaama dowladii iyo xukunkii systemkii uu dhamaaday oo dagaal u dhacay magaalada Muqdisho ay nabad tahay lagu soo dhisay Djibouti markaasi shirkaasoo markaasi tii maaragtay Cali Mahdi oo isaguna dowladii markaa Cali Mahdi ayay ka mid noqonayeen waxay ahaayeen markaa xisbi markaa jiray iyaguna la yiraahdo SDA oo markaa jiray bay ahaayeen oo dibadda laga aasaasay dibadeedna Djibouti yimid Djibouti markaasi ku kulmay Cali Mahdi markii dambana gudaha galay magaalada Muqdishona aan lagu soo dhaweeyay waxaan ahaa dadkii ku soo dhaweeyay waxa kamid ahaa xashara kamid ahaa waxa kamid ahaa Cabdi Doolaal ba kamid ahaa abibnin la oran jiro Muqdisho ku dhintay oo maartay madfac ku dhacay xilligii 92 markii dagaalka uu dhacay maartay soo sheeg sokeeye habar gidriya abgaal u dhaxeeyay macnaha qabaa'ilka isku bedelay markii dambe laakiin sa ahaa mid sadbursi oo la isku eriyanayo ahayd madaxweynaha inuu noqdo aydid iyo inuu noqdo Cali Mahdi markaasi maadaama maamulkiisii lagu soo dhawaaqay kadibna maartay aydidna uu ku soo noqday dagaalku halka ka bilaabmay waayahay anigoo markaa u soconaya oo nidaamkaygii halkaygii wadadeedii maraya waxaan rabaa markaa inaan soo noqdo gobolada SDA
oo xisbigaas baa nugleeyey oo markaasaa waxaa la yidhi isagu ma nugleyne isagoo markaa iska dhigaya daah baa loo saaray waxaa daah loo saaray oo markaasi snm ay daaha u saareen in ay u soo dusaan cabdiraxmaan iyadoo hadalka la leeyahay horena kana ugu dhawaaqay oo cabsi qaba ay gali si daah looga dhigo maadaama uu ninkan degdegay la oranayay soo sheegana cumar carte qaalib oo arrintii la ogaado fashilantay markaasi daah buu u saaray wuxuu yidhi gobolada galbeedka maaragtay isoo sheeg soomaaliya ee gobolka awdal waa inay jabhadaha ka jira SDA baan nahayna soo dhaweeyaan buu yidhi marka si siyaasadaysan ayaa lagu galay markaasi isagoo hor socda runtii marka arrintaasi laga hadlayo waxa wanaagsan si baahsan in looga hadlo si qeexan in loogala hadlo in shaaca laga qaado run ahaantii waxa weeye marka deegaankaasi dad deegaanka dhinacan ciddii ugu horreysay la dagaalamaya waxaan dadka deegaanka degan oo marka ku dhararan aad ugu dhararan dhinaca gabiile iyo deegaankaas dadka deganaa oo u badnaa samaroon u badnaa oo dagaal kula galay meesha la yidhaha abaarso iyo meesha la yidhaaho iisoo sheegan waxay dagaal kula galeen caabudla oo hargeysa soo dhaafi waayeen marka muddo dheer buu qaatay dagaalkii markii dambe waxay soo socdaanba dagaalku wuxuu isku soo ururay markii dambe meel duleedka gabiile iyo u dhaxaysa oo markaa banka wajaala la yidhaaho ilaa iyo maaragtay deegaankaas oo isku xidhan ayaa dhibaatooyin baahsan ay kala kulmeen markaas iyo dagaal adag ay kala kulmeen oo labada dhinaca iyadoo markaa la sheego in xitaa isaga naftarkiisa oo muuse biixi oo markaa baanduulaha ciidanka ahaa in rasaasi ku dhacday kadibna lagu tolay irbadda dunta ee dharka lagu tolay kadibna markii dambe rag badan oo halkaasi maaragtay ka mid ahaa snm oo waliba magac lagu dilay oo iyaguna waxay markaasi gadaafeeyeen maadaama ay jabhadana ay ragool calin iyaguna ay dagaalamayaan waxay markaa dadkii bulshada ahaa oo waa markii la ogaaday bay ahayd inay nimankan yihiin niman hubkoogii iyo aaladihii ay ka qabsadeen markaasi maxamed siyaad bare iyo ciidamada ee markaa gacanta ay ku dhigeen ee ahayd in markaa ay ku soo galay iyagoo hubaysan ayaa markaa laga horima iscaabin weyn ee ka hor timid marka way jiraan marka waayahay dagaalada markay dhacaan cabdiraxmaan markaa hadalkii loo qaaday ama gabaygii loo tiriyey waxaa ka mid ahaa oo u tiriyey abwaankii weynaa ee la yaqaanay daawud camir oo halkaa ku yidhi ereyadiisa weliba gabayga ma wada hayo ma wada dhammaystiraya laakiin in ka mid a ayaan idinla wadaagaya gabaygu markaas wuxuu ahaa ciraaq laguma duuleen hadday carabi diidi lahayd cadowgu walaalkaa ku jira cabdow cidiba iska caabin cabdiraxmaan coliba markaa loo jeeda cabdow cidiba iska caabin waaye annagana cabdaa noo soo kacay cidhifka samaroone cindi kuu dilna si kale kuu cerbixina dagaal wiilba wiil uga hadhay ayay noo cimaamadana bahay marka isagoo markaasi matalaya hadalkaasi uu yahay mid kadib markaa cabdiraxmaan iyo maaragtay iisoo sheegana muuse oo wada socda waxay kusoo galeen magaalada boorama sidii kadibna boorama waxay ku dileen dadkii safiiliyaanka dila iyo boorama waxay ku laayeen safiiliyaan dadka ugu badanna lagu laayay dila iyo maaragtay iisoo sheega boorama kadibna xeebta oo markaa iyaduna ay jireen jabhadda 99 oo snm ka tirsanayd oo cornel jilif ninka la yidhaahaa imika ciidamada ku jira uu watay waxay la dagaalameen markaasi dhig kale oo iyaguna dhinaca ka dagaalamayey oo dhinaca xeebta ka dagaalamayey oo markaas gacanta laysku geliyey labada dhinacba waxa weeyaan dagaal xoogan baa markaa dhacay dhinacan waxaa haysan jiray corneelka haysanayay ee dagaalka markii jabhadda watay waxaa la oranayay cornel indho qarshe cid walbana ay taqaano oo markaasi iska waabiyey laakiinse maaragtay suurtogeli weyday maadaama maaragtay iisoo sheegdaha loo saaray oo cabdiraxmaanna hadalkaasi inta uu ku hadlay gadabursiguna ay isdhigteen deegaanka gobolada awdal dadka degan ee bulshaduna ay isdhigteen marka meesha ugu weyni ee dagaalku ka socday wuxuu ahaa dhinacan xagga bariga marka galbeedka xeebtu wuxuu ahaa mid aan aad u ballaadhnayn oo weyn waa sababtoo saameyn weyn kuma lahayn halkaasi kabacdi waxa dhacay deegaankaas waxa lagu dilay dad 750 qof ah kadibna markaasi maati u badan dad dukaanadoodii iska haysta wuxuu haysta oo iska fadhiyo oo dagaal baan ugu talagelin oo moodaya in maartay SDA ay imanayso kuwa bariisteen inay yihiin jabhadii snm iyagoo markaasi gadaafooyin fara badan u geystay genocide
xunna meesha ka geystay intaa markaan uga baxo waxa weeye markaasi qodobkaasi saas buu ahaa oo markaasi sagaashamaadkii sidaas bay dhibaatadaasi u dhacday waxa ku xigay markaa maadaama aan sagaashankii kasoo hadalna dee inaan waxa qodobka labaad aan u gudbaa muhiima soomaalidu waxay ku maamaadaa hadal badan haan lagama buuxiyo ama hadal badan dameer laguma raro galbeedkana waa laga yidhahaa dhinaca Itoobiya maartay maamadaas waayahay waxa weyn qodobka labaad baan maartay galaynaa imika oo ah kaadiriinta keeno maal iyo hawlaha ay qabtaan okay kaadiriinta maadaama aad ka hadashay waxaan ka bilaabayaa 1991 markii magaalada Burco la iskugu yimid ee ay go'aansadeen in marka iyaga in la sameeyo waxa la yiraahdaa Somaliland dhulkii uu maamuli jiray maartay soo sheeg iyagoo iyaga dhexdoodu markaasi ku heshiin waayay xitaa shirkii waxa ka horeeyay Berbera kii Berbera marka lagu heshiin waayay Burco ayaa shirkan lagu qabtay marka shirkan lagu qabanayay Berberana waxa jiray saameyn weyn ku keentay gobolada Awdal niman markaasi kaadiriina ama keeno maal la yiraahdo keensa maal waayay hawshadan ku hirgeliyay iyadoo markaasi aynan dhicin ba gobolada Awdal dhibaatadii loo gaarsiiyay iyadoona wax xal ah oo laga gaaray ayna jirin runaantiina Soomaalidu dhaqan bay leedahay dhaqankay leedahay waxa kamid ah hadii maartay soo sheeg Gadaaweyn uu geysto orto in uu soo fadhiisto qofku in la wada xaalo in boogta la bogsiyo bogsiin fara badan oo halka iyadoona ka imin ayaan waxaan u bixiyay nimanka kaadiriinta oo maartay Faysalna uu hadalkaasi soo qaaday kaadiriinta keeno maal qolada uu bixiyay anagu waxaan u aqaanaa ku shubo ku hadal kuwa imika jira oo ku shubo ku hadallayna kuwana ay ahaayeen keeno maal ayaa imika jira waxa weeye ku shubo ku hadal ku shubo ku hadal ku hadal ku shubo ku hadal marka keeno maal waxay ahaayeen waa 4-5 ilaa waxa lagu eega waxay dhahaan dadku qaarkood 20 ay ku tilmaameen waa kin waa been waa laga been sheegaya nimanka ugu waaweynaa baan halkan doonaya caaw Allah u naxariistay nimankaasi waxa weeyaan maanta god bay ku jiraan Allah u naxariisto 4 nin baan soo qaadaya 4ta ugu waaweyn ahaa inta kale inay ka qayb galin oo na raacin iyagu u dusay una dhuuntay tala la isku wada ogyahay u dhameystiran yihiin deegaanka gobolada Awdal iyo Salal gobolada loo bixiyay ama gobolka Awdal dadka deegaanka iyo Gabiilay deegaanka dadka degan inaynan wax ay ku tashadeen ama ay ka wada tashadeen oo ah laga munaashiqooday oo amartay golo dhaqmeedku aynan ku tagin ee kuwa imika ku shubo ku hadalta ay iyaguna ka ahaayeen waxa way ahaayeen waan sheegayaa hala dhageysto kow wuxuu ahaa Allah u naxariistay Xaaji Daahir 2 Sheekh Muuse Faarax Goodaad 3 ني أو نور أفر وها يسو شجن شق على الجوهر هنا شق على الجوهر عبد الرشيد شق على الجوهر نك إمي كتاجن أمر خاتيجة وكرنك توم مصبح ويا صدح أفر صوما كشنات وها نين مجلس ويجمع قنية هاي الله ونحرسته دينتي لكن أنا هين باشنكوها شنبي أهاين ماي أفر بي أهاين أفراني لها أفر تاسع دوسي markay duseen waliba iyagoo isla og dadka waxa jira salaadiin fara badan baa jiray oo gobolada Awdal oo warka haynin arinkaas waxa kamid ahaa salaadiinta goobjooga ahaa ee wadanka joogay oo xilliga odayaasha kamid ahaa ee gobolada Samaroon waynu ognahay aad bay u badnaayeen wayna jireen waxa weeye Suldaan Saleebaan baa kamid ahaa suldaanka ugu fiican weyn gobolada Awdal ahna ahaa xilligii dawladda Soomaaliya magaalada Muqdisho deganaa suldaanka guud ee Samaroon ahaa intan dagaalku dhicin ka horna ahaan jiray Suldaan Saleebaan baa kamid ahaa dadkii laga dhuuntay loo dusay ee dusmadaasi aanan warka hayn buu kamid ahaa goobjoogna uu ka ahaa magaalada Boorama markii la dusay waxa la tagay
berberaa la sii maray shirkii berberaad ayaa waxaa dhacay waa shan haa ninka dhintay ee la sheegaya waa ka shanaad sax ninkaasi markaasi shan bay ahaayeen ninkaasaa shan ku ahaa waxaa lagu dilay markaasi markii ay yimaadeen ay ka qayb galeen gadood nin cadhaysan baa ka hor yimid oo taladaasi la doonaya iyagu dhexdooda kasoo bislaan ayaa laysku seegaybaa rasaas lagu dhuftay halkaasuuna ku dhintay waxaana lagu aasay berbera kadibna burcaa la isla tegey burca markii la isla tegey ayaa waxaa dhacday markaasi arrintu markay laisdhaafay ay noqotay in iyaga dhexdooda markaasi ay noqoto wax la isku jiijiito oo saamiya qolo walba ay yidhaahaan inacigaalna uu meeshii taagan yahay uu yimid uu deegaankii joogo ninka la yidhaaha maaragtay uu si guud u haysto marka uu leeyahay anigana waxa weeyaan waa oo isjijiid weyni uu ka yimid berbera dhexdeeda sababtaasa sababtay in ninkaana lagu dilo kadib markii la tegey burca la tegey ee shirkii la asaasay ee dib loo sameeyey ee la iskugu yimid baa waxaa laga wada hadlay markaasi sheekh muuse faarax godaad baa wuxuu soo saaray markaasi waa ninkii keenay buu harayga isagaa keenay wuxuu yidhi somaliland waxa weyn haddii aynu waqtigaasi waxa raggii ka midka ahaa buu ahaa xitaa nuur wuxuu ahaa nimankii xilligii 69 taagnaa ee soo taagnaa buu ahaaye doorashadii xitaa maartay la gelayay xilligii xaaji ibraahim nuur taagnaa buu ahaayo xogagaal buu ahaayo waxyaalo badan buu ogaa markaasi aw nuur waxa weeye marka aftaan waxa aad u aftaan ahaa oo hadalada sheekh muuse faarax goodaad baa aftaan ahaa oo marka wuxuu bilaabay wuxuu yidhi war haddii aanu qaldannay oo ay arrinkaa jiraan oo idinku wax ka baxdeen snm wax la yidhaaha meesha laga saaro Somali National Movement haynu ka saarno qasab arinteedana waxa ahaa nimankan maartay la yiraahdo keeno maal oo niman maartay dhaqaalena la siiyay una dusay ahaa marka wuxuu ku dhaw Somaliland ta halkaas marka ay ku sameeyeen anagu waxa la yiraahdo ma ogin gobolada awdalna waxa la isku raacsan yahay oo arinta ah maadaama waxa la isku raacaba ma jira maadaama maartay waxa la yiraahdo xal masuur la yiraahdo laga wada xaalay oo intay yimaadaan u soo fariisteen muuse iyo dhibaatooyinka iyo cabdiraxmaan cali faldambiyeedka ka geysteen la yiraahdo shir aynu maartay meeshaas kugu nimaadno oo kadibna maartay soo sheegana de waxa la yiri boogta hadaan la dhayin on gunta laga soo dhayin nabarku bogsan maayo bogsiima ma iman bogsiimadu waxay ahaan lahayd marka dadkii gafka loo geystay 750 qof lagu dilay de maartay soo sheeg dhinaca kale ee beesha dhibaatadan gaarsiiyay laba beelood bay ahaayeen beeshana waxa u badnaa ee dagaalka geystay SNM bay ahaayeen SNM laakiinse waxay ahaayeen beeshan bay ahaayeen beesha dhaxa wax maartay ula soo fariisteen oo xal marin ah oo ay markaa keeneen ma jirin odayadii way soo noqdeen gobolada awdal bay dib ugu soo noqdeen kadibna waxay aasaaseen waxa la yiraahdo iyagoo bahal lacagana wata dhibaatooyin fara badan ay wadankaasina xaalad dagaal lagu jiray dadkuna ay markaasi xaaladuba uu qasnaayo dhaqaale badan magaalada Boorama ee meel ay ka soo gashay jireen nin walba uu soo qaxo uu yaabanaa ayaa waxa sheekh muuse faarax goodad gurigiisa shir ku qabtay dadkii kale markaas dabadeedna la isku yimid lacag buu markaa ku faraqay kadibna wuxuu yiri iyadoo markaasi uu samaroon kala jabsanayo oo loogu talagalay nimankan keeno maal la yiraahdo ay kala jabinayaan iyadoo markaa lagu dhigay markaa uu hadalkii dhinac kale loo rago la yiri waxa weyn dhigeena aynu la qaybsano Somaliland ana ku soo dhawaaqay Somaliland halkaas kaga dhawaaqay waxa weyn Somaliland inaan noqono maadaama koonfurti dagaal ka jiraan inagu aan nabadeysano walaalaheena aanu dhig la noqono laakiin lisma weydiin su'aal la isweydiin ba meeshii taalay inay wuxuu yihiin wax la daa hoostiisa la geliyo daa hoostiisa ku qaran waxaad ogaataa cid isma weydiin 750 qof ee la dilay shirka markaa Sheekh Cali Jawhar lagu qabtay iskuulka Sheekh Cali Jawhar anigu magaalada Boorama dhex taagna magaalada Boorama joogay da'dayduna waxa weeyaan waxa da'da xilligaasi qaangaarkan ahaa tala kuma lahayn laakiin waxa taladaasi go'aan ka qaatay cidii markaa timid meesha waxa ahayd wax lagu heshiisiinayo beesha dhexdeeda run baan ku hadlaynaa waxa weeyaan iyaga dhexdooda ku heshiin waayay halkaasi waxaanu ognahay 4 nin 5 nin bay iskugu yimaadeen nin walba dhinaciisa uu saameynteeda leeyahay uu doonayo inuu madaxweyne noqdo shirkii burcaana lagu heshiin waayay waxa kamid ahaa
ina cigaal allahu naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal cumar carte oo dhinaciisa u socday tuur oo dhinaciisa u socday siiraanyo dhinaciisa u socday oo markaa sheeganaya guddoomiyaha sanamoon mujaahid baan waan u soo mujaahaday le oo mujaahidnimadu halkaas la isku haysto marka waxay ahayd odayadani markaa maslaxayn iyaga ay soo maslaxeeyeen lacagna ay ku soo qaateen ayaa booramana la keenay oo markaa la yidhaah loo maslaxeeyo doorashada loogu dhigay laakiin waxa meesha laga baxdo cidbaba isweydiin leh aan la isweydiinin waqtigaasi gadabuursi dhibaatada loo geystay 750 qof ayadii dhibaatada loo geystay ahay taasa markaa waxay keentay saraakiishii dhinacan ku jirtay markaasi ee dawladda iyaguba way ka mid ahaayeen inay kaayeen jimciye mid ah oo ka mid ahaa oo loo arkayay ilaa imikana loo arko inay faqash ahaayeen ama loo arko la yiraahdo faqash bay la soqonayeen waxa weyn dawladdii systemkii dawladdii maxamed saad bare jirtay cid walba ku jirtay kacaanka waxa weyn markaasi oo la yiraahdo tuus ay noqotay oo tuus looga dhigay gobolada Awdal ayna ku andacoodaan annaga ina soo raaci waayeen dhigayga soo raaci waayeen maadaama deegaanka deganay annagana dhulka xoreynayni oo xoreysanay marka waa sababta keentay weeyaan in la yiraahdo inanka gobolada Awdal jooga aqoonyahanka inuu inanka dhinaca gobolada maartay soo sheeg beesha dhaxay degan yihiin hargeysiin area degan inuu la yiraahdo markay soo garab fadhiistaan iyo burca ka yimaade ay soo garab fadhiistaan la yiraahdo ninkan aabihii mujaahid inuu yahay dalka soo dagaalamay kana uu mujaahid ahayn dawladii la dagaalameen uu aabihii dabadhiif uu ahaa ay macna ahaan sida uu arkaa arintaasi marka xal ma ahayn arintii boorama lagu galay waan ku sheegaya shirkii boorama shirba ma ahayn shaar madoob uu ahaa beenna ma shirkii boorama shirba ma ahayn shaar madoobaha shaydaanka shaarka xidhan iyo shilimaquuta ayuu ahaa shilimaquuta meesha iskugu timid marka waxay ku dhisaan waxaan Somaliland imika la leeyahay waxa la yiraahdaa alifka alif waxmaale kugu qabta albaq alifka alif waxmaale ka qadqada arbaqru kugu qabta ismay weydiin war walaalihiina dhiga kale Soomaaliyeed wax wad la lahaydeena intii kala nala maqan cid isma weydiine arintu waxay ahayd arin maartay soo sheeg intan inay dhistaan ku noolaadaan dhaqaalana ay ku qiraan doonayeen bay haayeen niman shilan raadisa oo halka uu maartay wariyuhu uu ku sheegayba maartay uu yiri keeno maal ay ugu tala galaan in maartay meel yar ay wax ku cunaan ummadana ay ku qufushaan loogu tala galay arinteedana uu lahaa Samaroon ninkii ugu leeytay Samaroon aan lagu dhex tilmaami karin markii Samaroon dibadda la joogay Samaroon dibadda joogaana dad kala sheegta hadalka yaan la anu beenka ma sheegayo runt baan idii sheegayaaye reerka xeeb jira la ilaaha markan banaanka joognana sheekhaal bay jimca dhashay bay noqdaan markay Awdal dhex joogaan ee boorama la dhex joogana waxay noqdaan reer boorama reer Awdal bay noqdaan marka in la kala saaro wanaagsan Sheekh Muuse Faarax Goodaad baa ku dhawaaqay arinkaasi isagoo aanan la xajecla ka qabin deegaanka waayo deegaanka nin u dhashay ma deegaanka nin la oran daro lagu tirin kara maaha sababtoo marka hore bay si qaldan ku soo galeen runta in laga hadlaa wanaagsan cufdulmada inta leeg waxa geystay Sheekh Muuse Faarax Goodaad oo ku kaga dhawaaqay oo isagoo lacag la siiyay oo aan la xajecla uma haynin nin la xajecla oo haysaarka kuwan kalena la mid bay ahaayeen keeno maal baleeraa waa wax arinkaasi keentay in maartay ay meesha markaasi ay soo galaan oo arinta lagu sameeyo waayahay aanu soo gudbino aanu naftarkayga ay arintaasi soo gaadho waxaan ka mid ahaa nimankii ciidamada ka mid noqday markii dambana saraakiisha ciidanka Somaliland la sheegay la soo aasaasay anagu aan maadaama aan ahaa nin dhalinyaro aqoon fara badan ay waxaan ba aanan fahansanayn waxay ahayd in aan ka qayb galo oo dabadeenada halkaas la isku keenay waayahay waxba laga ma faa'iidin keeno maal wax laga faa'iiday ma jirto wax laga faa'iiday in maanta ay halkaas ku dhacdo waxa weyn mar walba nin baa nool arin aan la iska weydiinin ayaa halka ka dhacday arin aad u xun baa ka dhacday waxa weyn arintaana dibteeda afartan inaan iyo ninka dhintay ee Allahu naxariiste way wada dhintay hal nin baa ka nool afar nin baa dhimatay nin kaliya nool
ninkaasi waxa weeyaan sheekh muuse faarax godaan samaronar inay u dhan yihiin ma ahayn muuse laakiin wuxuu ku andacoodaa arrinka oo uu uga dhigay maaragtay uu waxa la yidhaha weakness uu uga dhigaya markhaatina uu mar walba ka dhigtaa cabdirashiid sheekh cali jawhar oo ah ninka maaragtay inankii uu adeerka u ahaa ama inankuu isagu dhalay magaalada markii qalinka uu qabsaday doorashada markuu qaadayay la dooranayay markii la doortayba markhaati helay eryadii uu ku hadlaya oo ah in keeno inankiisa in gaara dad gaara ay meeshaasi ay ku nool yihiin oo dabadeedna maaragtay ay u xidhan tahay saami looga dhigay kooto loogu xidhay kadibna inankiisu wuxuu ahaa agaasime waa kii hadlayay agaasimihii hadlayay buu ahaa dhowaan waa kii dabadeedna maaragtay qalinku qabtay qalinka muuse gobolada awdal ma eegayo isagu waxa weeyaan arrin buu ku dagaalamaya snm hadhaagiisiina weeyaan wuu ku dhuftay kii isagoo calacalaya inuu social media ka wada daawanayna waxa weey taas maxay dhashay abaalkaygu markaasi ninka sidaa u markhaati galayay xataa laguma tixgelin inankii uu isagu dhalay cid ku tixgelisay ma jirto marka halkaas ayay taagan yihiin iyagu waxaa la yidhi nin walba meeshii uu isdhigo waxaa la yidhi sica qowrac weesha ku quus qaadatee walaalkii loo xiiriyow adna soo qoyso waxaa markaa loo xiiray oo ay arrintu halkaa ka qaldantay saasayd markii la doortay waxaa dhacday markaasi nimankanoo markaasi dhaqaale aad u fara badan ku bixinaya oo markaasi nin dhaqaalihii dowladdii soomaaliya haysta oo xoogaa yaroo dhaqaale ah haystay dahabshiil oo marka xoogaa yar isaguna xilligii ma garanaysa kasoo faa'iiday waxa la yidhaaho snm oo dibadda oo ingiriiska micnaha diigshiil baa loo yaqaanay oo lacagta xawilaad dadka u xalxawili jiray lacagta hayn jiray markaasi la ururiyo contributionka ee snm dadka soo qaxay ay ururin jireen qaxootiga ku ahaa wadanada kale ay ururin jireen lagu diri jiray oo isagu ahaa halkaasuba markaasi uu ka soo baxay maaragtay isaguna ganacsiga uu ka bilaabay diigshiil baa loo yaqaanay dahabshiil markaasi taas oo xoogaaga yar lahayay dhaqaalaan lahayn laakiin ninka ugu dhaqaalaha badan ee dhaqaalaha markaa doonayay faraqaya uu ahaa oo lacagna haystay ninka la yidhaaho cumar carti qaalib runtii cumar carti qaalib baa bahal lacaga haystay carabtana ka soo qaatay lacag magaalada borow markaasi deegaanka aan u joogo waqtigaasi waxaan ka mid ahaa raggii gaadhigiisa qaatay ee duurka la galay runtii waxaan anagu uga xanaaqnay ninkii ku hadlay buu ahaa jabhadda gobolada waqooyi gobolada awdal waa inay snm isku dhiibaan sidaa darteed baanu waxaan u ataagnay markaa si gaara oga ataagnay nimankii kale muusoo xitaa socdo ul wato laba gu oo cascasna wata magaalada boorama dhex socday laakiin isagu nin madaxweyne xilligaa loo dooranayo maba hayno loo dooran maayo oo cidimay dooranba wuxuu ahaa daba socodka dadka abuu ahaa laakiin meeshan 4 nin baa ku tirtirayay 4 nin ee ku tirtamayna waxay ahaayeen 4tan hore uu soo sheegay midna oo maxamed xaaji ibraahim cigaal siiraanyo oo isagu markaa wadanka ka tagay laakiin doorashadan aanan ka qayb galin markaa 3 nin baa ugu muhiimsanaa saddexda ugu muhiimsanaa ee meeshan doorashada lagu qabtayna waxay ahaayeen waxa weeyaan cabdiraxmaan tuur iyo maartay cumar carti qaalib iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal saddexdaa nin baa markaa uu isaguna daba socod buu iska ahaa dadkii soo galay buu ahaa ee la socday go'aa casas watay marka iyadoon meesha xal laga gaadhin alifka alif waxmaalo waxa la yidhi aad kaga tagtaa albaqru kugu qabtaa iyaguna maalintaasi talada seegtay qoladanna hadday ay keeni lahaayeen wax la yidhaaho maaragtay isoo sheegay loo soo fadhiisan lahaa cuftigan iyo systemkan iyo nidaamkan imika jiray kacdoodka keeni karaba aabbana u noqon kara u ah sababta waxa weyn goboladaasi dadkii safiliyanka ahaa ama shibilka ahaa ee lagu laayay eheladoodii ee waqtiga aabayaashood qaarkood aabihii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo dhinac ay ku jireen ayaa maanta hanaqaada oo rag waaweyna jaamacada ka baxaya halkaasay ka qaldantay xal looma helintaa martaa arrintaa cid xal u helaysaa
uma malayn doono xitaa dowladda Soomaaliya haddii la isku darsado la yidhaaha Soomaalidii weyneyd ee Soomaaliya la isku soo celiyay xitaa arrinta xal in loo heli doono uma malaynayo sababta waxa weeyaan markay systemku noqdo ninkan cid ka yeelaysaa ma jirto hadduu dibadda dalkiisa uga baxo isaga iyo Cabdiraxmaan oo Caliba labadoodaba genocide-kay geysteen iyo dhibaatadii geysteen kama masaxayso dad baanan maartay eeladoodii ku jiraan oo maanta dad waaweyn arinta maartay iyo soo sheeg kuma ilaawi doonaan waayo nin aabihii iyo hooyadii oo la dilay oo waxay geysatay iyo dagaal ay ku jirtay aynan uuna garanayno lagu dilay cid maartay saamaxayso ku saamaxaysa ma jirto waa sababa keenaya waxa weeyaan iyagu dad soo dagaal soo galay bay ahaayeen dagaal ugu tala galay systemka oo dhan in arintaasina maartay in maartay dagaal uu geysay maxamed siyaad barna waa arrinkaasi de waxay la dagaalameen dawlad iyo system jiray bay la dagaalameen marka iyagu laakiin dadkan dad maatiyo guri loogu yimid guryahoogii bay ahaayeen oo maartay dad iska fadhiyo waliba maartay dagaal aanan ku jirin marka dadka uma malayn taa xal in xitaa loo helayo uma malaynayo hadalkaasi marka aad baan ugu dheeraaday taas oo marka anoo ku sii guda jira arinkii markii saa uu noqday waatii inacigaal meeshii ku soo baxay systemkii waa kii socday waa yahay inacigaal oo marka ku soo guuleystay meeshii su'aashii ugu horeysay weydiiyay uu la hadlay waliba wuxuu kula hadlay Siciido Gooje gurigeygii oo ku yaalay oo UNHCR ay deganaan jirtay ayaa la iskugu yimid gurigii hoose Siciido Goojo ayaan ka hadlay maartay ayaa la iskugu yimid wuxuu marka ina xaaji uu kula hadlay Guraab oo saaxiibkii ahaa oo jeelka kula jiri jiray xilligaasi oo looga yeeray maartay meesha la yiraahdo Addis Ababa laga soo kaxeeyay meel u dhow Dirdhaba laga soo kaxeeyay uu yimid kamid ahaa odayadii uu fuudii markaasi meesha joogtay uu kamid ahaa ayaa markaa waxa soo baxay Calan Castiga meesha Calan Cas baa ku soo guuleystay waayo meesha waxay u dhaxaysay Calan Cad iyo Calan Cas baa waxa ku tartamayeen markay wadanka qabsadaan nin walba inuu xukunka iyo nidaamka qabsado laakiin maxaa xal u noqday xal waxa uu noqday odayadan gobolada oo loo keenay lacagtana la siinayo dhaqaalaha la siinayo iyagiina maartay soo waxa la yiri awrkiraalayaasha ahaa ee lagu meel gaadhay maartay soo sheegeen maartay lagu sii meel gaadhay ninaan shalay ku furin baa la yiri inuu maanta ku rarin ninaan ku rarin inuu ku furin waxa weyn nin maartay soo sheeg aanan adigaba taadi ogolaan bay nimankaasi u rareen oo orkoogii systemkoogii u ogolaadeen dhibaatooyin fara badan gobolka Odol way ogaayeen Sheekh Mustafa Faarax Goodaad wuu ogaa dad badan gobolka Odol wuxuu ka soo qaxay Xamar buu ka yimid dadkii Xamar ka yimid baanu ka wada ahay kamid ah xaaladaha ku jirta magaalada loo geysanayo war kama haynin go'aanka markuu qaatay isagu way dadkii loo geystay meedadka iyo iyagoo wixii la aasay baa la yimid magaalada Boorame kama war haynin xitaa xaaladdu basay u dhacday Sheekh Mustafa Faarax Goodaad ninka war hayay ma haynin Muqdisho laga yimid annagu maanta inankiisa suldaanka ayaan isku daahayn iid baan isku daahayn Axmed iid ninkaas la yiraahdo suldaanka laga dhigay baan isku daahayn waxaan la yaabay markaasi ninkaasi waa dad soo wada qaxay oo koonfurta ka soo qaxayna waan wada ahayn marka wax aad loola yaabay ayay arintaasi noqoto waxa weeyaan markii dambe waxay keentay in deegaankii la iskugu soo noqday in cigaal ugu doortay in cigaal markaa uu la hadlay wuxuu yiri uu yeeray shuruud xitaa cid shuruud weydiisato ila anagu shuruud baan wadanaa odayadii halkaas kugu yimid xitaa la dhex yimid booro markii la yimid shuruud dhigtay ma jiro xataa kuma shuruutamin laakiin waa maxay shuruudda ugu koobaad guray nuur baa ugu dhawaa guray nuur baa la weydiiyay guray nuurna wuxuu geeyay Cabdiraxmaan oo Cali oo ninkii fal dambiyeedka geystay iyadoo la isku dhaafay waliba magaalada dhaxdeeda arinta waxa la jiga biga hadaanu jirin waanu jabi lahayn maalmahaasan hadalladaasi xitaa maqlay oo maxaa looga jeeday waxa looga jeeday isagoo Cabdiraxmaan oo Cali markaas ahaa check up waxa way pick up ba weyn wala biigareey waxa laga soo biigareey inuu nin xitaa isaga naftarkiisu aan lahayn baragnimo iyo midna toonaan lahayn waxaad ku garataa nin laga soo biigeeyay weeyaan amaamiirtoodana ku shaqeynayay oo ku soo dhax mamay oo nin mamay oo ku dhax koraya ilmo horaan u sheegay eragaasi horaan weyn imikana waan isticmaalaya
wuxuu ka mid ahaa nimankii ilmo haddii matal baan idin siinaya ilmo haddii uu ku soo koro oo reerkii ii dhalay iyo aabihii iyo hooyadood ma reer kale soo korsadaan oo ninkaasi hanaqaad noqdo nin weyn isagoo uu reerkii loo keeno waxa weeyaan odaygii iyo hooyo iyo islaantii dhalay midna toona nin maartay adeecaya ama ogolaanaya ama amaamirtooda qaadanaya maas because duu kuma soo dhex koro iyagu may soo korin oo wax may siinin oo kamay warhaynin cabdiraxmaan markaa waxaan leeyahay wuxuu ku soo dhex koray cid dad kale ku soo dhex koray cabdiraxmaan waa meel kale ku soo koray oo lagu soo ababay dhiig kale lagu soo shubay dhiigga kale ayuu la soo galay meesha ilaa imikana waa nin aad u fududahay in wax kastoo la yidhaaho amaamirtooda qaadanaya cabdiraxmaan markaasi sidaas waa cabdiraxmaan cali baa markaasi ka daro dibi dhal tanaa ka sii daran isagiiba markaa waxaa laga dhigay oo inaciga lagu kabay oo loo yidhi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland ahna wasiirka gaashaandhiga laga dhigay waa tii dowladdu markaas tagtay oo inaciga halka ka sidee lacagtii samayn jiray marka wasaaradda gaashaandhigana markaasi cabdiraxmaan waanu ku kulannay waan arkay oo run ahaantii anay naftarkayga ogaaday oo wasaaradda maadaama ka wada shaqaynayna damiirkiisu si yahay systemkiisu yahay runtii waxaan fadhiisan jiray gurigiisa nimankanna markaa waxay ahaayeen calan cas bay ahaayeen oo nimanka calan caste loo soo quusgooyey bay ahaayeen halkaasaa lagu soo quusgooyey inacigaalna sidaasuu ku soo baxay samaroonna habeenkiibuu kula kulmay markaasi markuntuuna boorama ka soo bixin gurigii aan sheekadii horeyn baan ilaaway aan idigu soo celiyey magaalada boorama oo gurigaas ciidagu joog bay ku kulmeen wuxuu la kulmay markaa odayadii oo dhan buu la kulmay arrintii markay dhammaatay wuxuu yidhi waayahee maamulkaygii iyo systemkaygii maadaama ayaan dhisayaaye wixiina wax ku salaysan oo maaragtay goboladan dadka deegaan oo ku salaysan inaan dhisaan doonayaaye ree awdalow maxaad ii weydiisanaysaan oon idiin qabtaa ree awdalow maxaan idiin qabtaa buu ku yidhi guray nuur baa isagoo cararaya u tegay dadkii weliba si dhuudhuumashaa loola kulmay wuxuu weydiistu ku yidhi annaga wax kale kaa dooni mayna ninkaa idila soo halgamay hee nooga dhig maaragtay ra-iisul wasaare nooga dhig madaxweyne ku-xigeen baan ka wada nooga dhig waayahay hoostuu ka qortay wuu ka tegey cabdiraxmaanna waa la socdaa markii bes waayahay qoladii kale ayuu markaa cid ayuu haddana la kulmo maxaa cid xitaa dadka uu la kulmo odayada hal qof oo yidhi gurinow isagu habeenkiiba u dhuuntay u tegey siciido gooji gurigayga markay bixi rabaan habeenkii halkaasay joogeen halkaasay gurigaasay galeen halkaasay markaa uu kula kulmo si dhuumasho uu la kulmay laakiin odayada kale meesha yaalay ee la iskugu keenay ee 500 oo fuuda ahaa ee halkaa wax ku cunayay qaybtii ay ku lahaayeen gobolada awdal runbaa wanaagsan nin walba meeshuu isdhigay way maanta yaala cid wax weydiisato yidhi annaguna kanaan wadanaa waxa weeyaan gadabuursi waa ilaa 12 dab 12kii dab cid wax weydiistay ma jiraan iyo in ka badanba cid maanta u tagta odayadii kale ma jiro sheekh muuse faarax goodaad ban xitaa intuu u tegey oran maaragtay annagana maaragtay wasiirkaa noogey kuwii xitaa watay ahaa odayada ahaa kuwan keeno maalka ah keeno maal ban xitaa wax weydiisan oon oran maaragtay annaga wax noogu dar maadaamaan ku guulaysanay ood maanta aan maaragtay aan abaalkayagii may aan ku isaga abaal laga dhigay bas hal keliyuun bay ka faa'iideen odayga muuse sheekh muuse faarax goodaad isagaa iswaday isagiina waxa weeye markaa waxaa laga dhigay gudoomiye ku-xigeenka guurtida laga dhigay golihiisii kabineetka kama soo qayb galin laakiin guurtidii uu dhisay buu ku daray ina sheekh madar ba ahaa waxa ku-xigeenna ahaa sheekh muuse faarax goodaad labada nin ee isla socday ahaa talana dhinac waday ahaa inacigaal inuu ku soo baxayna fududeeyey ahaa ayaa halkaa keenay kadib taasuu ka faa'iiday waayo muuse isagu taasuu ka aamusay waayahay odayadii maaragtay xaaji daahir oo dhinaca uu ka soo jeedo dabkiisa ahaa isagu wuxuu meesha hoosta ugu dhuuntay oo weydiistaan idii sheegaya galbeedi nin la idhaahu weydiisto galbeedi baa la geeyey galbeedi
ayaa la geeyey meeshaas oo ah wasiirkii maaliyadda ee xukuumaddii ina cigaal uu ugu horreeyey u magacaabay wasiirkii arrimaha gudahana wuxuu siiyey habar awal weliba sacad muusuu siiyey sacad muusena markaa ninkan buu ka dhigay la yidhaaho iisoo sheeganaan muuse systemkii maamulkii dowladdiisu qaybinaya dee waxay ahayd waa dowlad markaa maaragtay xal ma ahayne xul ma ahayne xal bay ahayd xal buu markaa maamulkiisa ku dhisay magaalada hargeysa la iskugu yimid cabdiraxmaan tuuro ka soo xanaaqay arrinkaas magaaladii isagu waddanka uu iskaga baxay burco dhinaceegu tegey waddanka buu iskaga tegey markaasi markuu arkay xaaladdu inay adag tahay dee dhigiisiina wuu la kulmay inay arrinkan yihiin arrin maaragtay siyaasadaysan maadaama sheekh muuse faarax goodaad iyo arrintani maaragtay ay noqotay dhaqaale in la isku riixo habra awalna ay dhinac intay isku raacday sacad muuse maaragtay maadaama dee ninkii kale uu la oranayay cumar carte qaalib uu meeshii waayey dee habar awalnimo ahaan habar awal waxay markaa soo saartay si guud in ninkan siyaasiga ahaa runtii maba bacdhigi karaynin runtii labada marka la yidhaha laisku keeno dee isku backgroundna maaha isku titlena xitaa maaha uu ka title fiicnaa aqoontana wuu kaga horreeyey oo nin aqoonlana wuu ahaa nin dee ra-iisul wasaare kasoo noqday dowladdii soomaaliyana wuu ahaa habar awal ninkaasay awoodda saareen dhaqaalahoogo dhinna ku bixiyeen hadday oomaar tahay hadday tahay isoo sheeg ninka la oranaya ibraahim deere nima isaguna wuxuu iskugu yeeray ibraahim deere iyo ganacsatadii oo dhan wuxuu qasab kaga dhigay lacagtii markaa cabdiraxmaan tuur 1991kii markii iyagu uu cabdiraxmaan tuur meesha iska qabsaday ka hore intii maaragtay shirka halkaas markii la isku diiday intuu isagu xilka hayay xilkaas isagaa si kumeel gaara u sii haystay waayo si kumeel gaara u sanam isagaa ahaa madaxweynaha markaasi meesha haya oo madaxweynihii ugu horreeyey la yidhaaho 91kii kumeel gaarka loo doortay buu ahaa burca lagu doortay markii dowladda la dhisay isagaa si kumeel gaara u sii hayay arrintii marka wuxuu ogaaday dee dhigiisii buu ula yimid wuxuu yidhi niyo arrinkaasi arrin bisil ma ahayn wax bisilaaday oo meesha booram wixii la geena nimankii galbeedku markii galbeed la tegey ee halkan wax wanaagsan aan u arkaynay dee waxa weeyaan dhigiisii buu la wadaago waxa la yidhaaho maaragtay ayuu u sheegay arrintaa markaas iyadoo dadku kasii cadhaysan yihiin arrinkaasi oo la ogaaday in maaragtay iisoo sheeg eexi ka jirto lagana exday dadkii bariga deganaa sanaag iyo burco oo dhan aynan arrinkaasi gaarsiisanayn ma gaarsiisanayn maamulku markaasi arrintaa lagu heshiiyey gobolada oo dhan ilaa iyo sool sanaag sool iyadu wax heshiiskaa kaga jiray oo la oran kara xitaa odayada meeshaa yimid ee magaalada boorama yimid dee ma garan karo anugu laakiin wuxuu ahaa un dadka dhigayga gobolka awdal dadka degan iyo dadka degan maaragtay deegaankan hargeysa beesha dhexe la yidhaaho ayay ahaayeen marka xaggaasi maan arkayn magaalada boramaan joogay weli maan arag nin dee odayadii ka mid ah xitaa waan tegi jiray meesha maaragtay oo dhow dee nin hanaqaadoo nin weyn baan ahaay oo wax kala garanaya waan joogay waan tegey dhowr goor baan tegey iisoo sheegay iskuulka sheekh cali jawhare shirku ka socday maan arag indhahaygu maan saarin iisoo sheegay waxa la yidhaaho inay jireen oo odayaal ay jiraan oo maaragtay iisoo sheeg dhinacaa ka yimid sool wax sool sheeganaya waada reer sool baan ahayle oo dadka xitaa markii la soo ogaa dadkii yimid meesha waxay u baadnaayeen oo fuuta timid beesha dhexe haayeen beesha dhexe inta dab ay u kala qaybsan tahay haayeen iyo gobolka awdal intaa uunbaa meeshaa iskugu yimide 500 la sheegayaaba iyagay ahaayeen hal nin baa la yidhaahaa markaasi oo odayaal qaar ka mida ayaa markii dambe ina cigaal meesha la iskugu yimid ina cigaal markaasi oo kasoo qayb galay oo xaabsado uu ka mid ahaayo xaabsadaa ka socday bes oon arkay malaha ninkaa xaabsadoo uu magacaabay xil uu magacaabay markii dambe odaygaas iyo oday kalaan malaha arkay dhulbahante gebigoogaba garaad jaamac maan arag garaadada ay leeyihiin iyo nimanka maaragtay odo dhaqmeedyada ay leeyihiin golaha dhaqanka ee reesol u leeyihiin iyo sanaag midna toona kagama jirin alla ilahe ninkan la yidhaaho axmed siciid la yidhaaho haadaftinimo degan ee maaragtay bariga kaasaa yimid oon arkay kaana wuxuu keenay oo markii la isku imanayay dabadeedna uu ka wada hadleen oo dhinacigaalna maaragtay uu dowladdiisii qaybinayay uu u geeyey nin la yidhaaho wasiirkii ahaa
wasiirkii markii dambena lacagta la baxsaday ee maaragtay soo sheeg warsangeli kaas gurigiisana lagu wareegi jiray ninkaasaa walaba isaguna keenay marka systemka meesha waxay ahaydba marka way yaraayeen oo waxa weeyaan sida gobolka awdal arinta aan looga wada dhanayn markii 19 lagu qabtay ayaa maaragtay sool iyo sanaagna aan loo wada dhanayn dadka tagay xagga burco tagay ayna u wada dhanayn arinta ka qayb galin marka arinkaasi waxaan ku soo koobayaa waxay ahaayeen nimanka keeno maal baa arinkaasi abaabulay dhinaciga la meeshu ku soo baxay dhinaciga la wada markaasi waa kii hadallo badan halkaasi ka yimid xukuumadii uu asaasayna de nimankan calan castusaasay labada u qaybsanaayeenoo odayga markii ay arinka ay sheegtay oo ogaaday isagu markii dambe uu ogaaday in Muuse isaga naftarkiisa cadow ku yahay calan casna uu yahay uu ogaaday ayaa waxa dhacday de nimanka maarta mujaahidiinta sheeganayna uu kamid ahaa halkana inuu dajiyay sida Cabdiraxmaan oo Cali iyo de isaga ayaa labadan nin horta dhinaca ka soo galay dawladdii markii uu dhisay 1993 magaalada aanu maartay soo sheegan waxaan tagay Hargeysa waxaan markaasi ka shaqeynayay shirkad la yiraahdo Refair Town shaqeynayay oo min saarada waa shirkadihii uu Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ku dhawaaqay wadanka ka saaray bay ahayd uu yiri shirkadaha maartay wadanka hay'adaha jooga waa inay iska soo diiwaan galiyaan dawladda hadii kale 24 saac gudahood wadanka ka baxaan marka magaalada Boorama ay aad u badnaayeen oo ay degnaayeen hay'adaha dhan hay'adihiina way ka baxeen wadanka marka hay'adaas aanu shaqeynay markii dambe qoladii lagu wareejiyay baan ahaayay markaasi dawladda lagu wareejiyay gutadii koobaad baan kamid ahaa marka goob joog waxaan ahay baan ka hadlayaa oo sheegaya maaha maana awaal wax laga maana awaala maaha runtii arinkaasi saasuu ahaa kaasi oo waxa ku sii xigay markaasi oo doonaya inaan ka faa'iideysto waqtiga uga faa'iideysto maadaama ay tahay kaadirinta keeno maal iyo hawlaha ay qabtaan ay ka mid tahay kaadirintu hawlahaas ay qabteen kuwa markaasi imika soo noqonaya iyagana imika la shaqeeya Muuse la shaqeeyay waxay qabtaan Muuse waxa la shaqeeya oo goboladaasi uu fududeeyay oo kamid ah kaadirintan idii sheegay ay dhigeyso sheekha anagu sheekh ma aqaanani sheekh siyaasad lagu ma yaqaano ninka maartay la yiraahdo ina Sheekh Cali Jawhar oo ahaa nimankii maartay soo sheeg kaadirintii ka soo haray haraagii hore ah oo waxaan oo dhan had iyo jeer magaalada Boorama baanadii maartay soo sheeg lagu furayay noqday isaga weeyaan nimankan oo dhan maartay meesha geeyay Ismaaciil ninka la yiraahdo Axmed Ismaaciil ninka la yiraahdo maartay koob oo kuwa maanta hadlayay ah laba dawal صدح بادي سلطان بادي صدح ضانين إيا إنا الشيخ علي الجوهر أفر طبو وحي لا شقيان وحي كبديان كولا إلا كشبو وكو هضر سلادين تا كوفيد بعلياشا أي كمديهين إن لو قفا ماها سلادين تا كلا وناكسن قولها مركا هذا الكاسي وحن كسو قبقبين يا ماشاسي وحي كلمة قولها دقنكا ummadii waxay ka dhisan tahay golo dhaqameed hoggaanna waxa uu golaha dhaqanka Soomaali waynu ognahay dhaqan baan leenahay hoggaankoodu waa olo dhaqameed gobolada Awdal iyo Salal iyo Gabiley waxa laga dhintay golihii dhaqankii oo aan iswada wadan oo aan maartay soo sheegaan meel wax u wada wadin bay sartu ka qudansan tahay horta waa koow waa taas halkaasna kaga hadhaya okay waayahay gobolka Awdal yaa maamula yaa seku lamaan gobolka Awdal waxa maamula qodobkaasi guud ahaanba hadaagiya sanam baa maamula hadalkaas waa kooban yahay hadaagiya sanam ayaa maamulka hadaaga sanam buu hoos yimaadaa maaha maamul Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliyeed gacan kuma hayso laakiin dadkaasi waa dhibaataysan yihiin waxa weeyaan koofiyad baclayaal iyo maartay durbaan loo tumay oo beena waxaanu ognahay iyadoo markii horeba waxa la yiri wixii hore wax lagu heshiiyo wanaagsan baan jirin
oo alifka rafmaal kaaga maqla arbaqlu kugu qabtaada ah ayaa maanta haddana waxaa ka jira gobolada awdal horta guumaysi baa ka jira weyn guumaysigana waxaan oran karnaa guumaysigu waxa la yidhaahaa dadku waxay u yaqaanaanuun waddan kale kugu soo duulay oo ajnabi ah maaha guumaysigu sida dadku u yaqaanaan waxa weyn waa shay kastoo doonaya deegaanka meesha yaalla ama dadka meesha degan inuu bedelo anu sidaasaan u arkaa waxa weeye guumaysiga laba u qaybsama waa guumaysi sokeeye iyo guumaysi shisheeya la yidhaahaa waa sida ay u tahay siyaasaddu waxa la yidhaaho siyaasad aan maaragtay instructive ah iyo extractive baa la yidhahaa aan extractiveku waxa weeyaan qof sii fog micnaha siyaasiga xag jirka ah iyo siyaasigan xag jirka ahayn soo maaha haddaba tanna waxa weeyaan waa an extractive kaasoo kale ay ka timid way u dhowdahay waa sidaasoo kaleo waa guumaysiga dahsoon baa la yidhaahaa ee sokeeye iyo guumaysiga shisheeya baa loo yaqaanaa guumaysiga sokeeye markaasi waxa weeyaan dadkan waa dad ehli iyo intaba dhiigaan wadaagnay laakiinse geeljira geela wuu jirtaa haddana wuu kala jirtaa bay Soomaali ku maamahdaa iyagu geel bay jirtaan nimankanna waa dad iska masaakiin oo daacada galbeedka dadka degan qofkii tagay baa yaqaana Soomaalina way wada taqaanaa waa dad aanan dhib lahayn oo aad u wanaagsan oo masaakiina waxay ka mid yihiin sida dadka dhigooga kale ee degan anu waxaan oran ma caawa waxaan u reebayaa ma jirtay runtaan u sheegayaa waxaad la mid tihiin ninka dhibaatadu ku haysato marka iyo baraawe cadcad kaasoo kale aad ka tihiin runtii abow see camal waaye huunada haddaan hadalkaa huunada la iska daynin haddaan soo dhaweynta iyo maaragtay soo sheeg arrimaha aan la galin waxa weeyaan nin wax xeerinaya haddii wax la xeerinayo xeeris hadduu yimaado qof wax xeerinaya raggii wax lama qaybsado dhiggii wax lama qaybsado nin wax xeeriya dhiggii wax lama qaybsado xeeris meesha ma taalo waxa weeyaan maanta anaga run baa wanaagsan haba ahaato maxay ku qabaan waa kuwa sameeyay ilaa maantana dhibaatooyinka loo gaarsiinaya waxay ku qabaan may jirta gobolada awdal waxa haysta ee maamulaan hadaba marka u soo noqonaya waxa maamulay SNM haraagi SNM baa haysta guumaysigii galay 750 qof ku dilay ayaa maanta gobolka awdal la maamula because Muuse wuxuu ahaa nimankii mahad iyo jeerida laba la isqabadsiin kari laayay say u dhan yihiin beesha dhaxa waxay aaminsan yihiin waxa la dhahaa mujaahidiin gobolada awdal waxay aaminsan qori qalin baa loo dhiibay oo qalinkaas ay aaminsan yihiin haddaba qalin iyo qori idinkuba waa kaas qalin iyo qori meel ma wada maraan mise ma wada mari karaan dad wax wada yeelan kara xitaa maaha run baan idin sheegaya qori iyo qalin meel ma wada iman karaan marka dhalinyarada maaragtay ii soo sheegan dhinaca kale waxa weeyaan waxay wada aaminsan yihiin walba aabahay baa mujaahid ah dagaal baynu soo galnay diyaaradaas halka loo saaray waad arkaysaa waxa weeyaan dagaaladii sokeeye soo dhacay Soomaaliya dhan baa isku wada dishay inta magaalada maaragtay ii soo sheegay gobolada waqooyi loo geystay ee laga dilay ee xitaa dawladda xukunkaas la yiraahdo Maxamed Saad Barre uu geystay xitaa inta Soomaaliya isku geysatay ee gobolada maaragtay koonfurta la isku geystay isku dileen xubin bay isku dileen crimes bay isku dileen madaxweynuhu waa ka qodbada la ii soo sheegay uu ka hadlay xitaa bal u fiirsada madaxweynuhu waa ka